Wafdigu oo ku kooban 40 xubnood oo dhawaan magacaabay Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble yaa hadiran magaalada Baydhabo ee caasimadda Maryland. May hogaamiyay wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda Soomaaliya Mayse Fayle Laahin ka dhawaayay garoonka diyaaradaha ee Shaadda Gaduud ee magaalada wayba geeka magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya hadiray wafdi farsamo oo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya maalintii shaqada la magacaabay wafdigaas oo ka kooban ku shal socda dhammaan dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir xubnahaas oo geeka meel raaysan nabadgelyo Nigeria weelana hadhawaada wayba meel raay Baydhabo handeerina ani meel raay shirki hadii la yiraahdo kanada sunu furmo doona mardhow guddiina way fadaan meel raay lana ka dhawaada magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya idan ka faraxsan xaqiiqdii ka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ahaan anigee ka shirkan la iska kooy guddi heerkan laagna kooy insha Allah taala shirarka in badan ha socday meel badan la iska nagadi oo rajay doon Ilaahay ku rajeeyane ani Soomaaliya ka guuleysay fadi iyo waxyaabo badan oo bulshada Soomaaliyeed oo meel walba roogdana oo filada hayto waxyaabo idan wanaagsan hawada fiiriyayta guddigu warajay doon in Ilaahay waafajiyo Wasiir Saalax wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiyay guddiga oo dhanshay la hadalay warfadiyeenka ya sheegay shirku saacadaha socdan ku furmo doona magaalada Baydhabo ee caasimadda Maryland ya ka rajeeyay in xukuumadda qodobo isku waafaqsan ummadda Soomaaliyeed sida hadalku siin dhagay waxaan maanta kulan shaqo ku nimi magaalada caasimadda maamulka Koonfur Galbeed ee Baydhabo annagoo ka kooban dowladda federaalka dowladaha xubinta ka ah iyo gobolka Banaadir waxaanu ku rajaynaynaa halkan inaanu sii joogno maalmo aad u kooban maantana shirku noo furmi doonaa si aanu arrimaha u soo idlayno u soo gabagabeyno marka warbixintan hordhacda waxaanu rabnaa ugu horeyn inaanu run ahaantii si buuxda ugu mahadcelinno maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Laftagareen iyo wasiiradiisa iyo howlwadanada sida sharafta leh noogu soo dhaweeyay ilaa saaka ilaa ay hadda noogu soo dhaweynayay magaalada intii waftiga ay soo socotay waxaanu kaloo rabnaa u mahadcelinno dhammaan xubnaha oo iyana safarada dheer soo galay sida halkan u yimaadaan insha Allah taala wixii tasiilaada ee shirkan ka soo baxa iyo conclusionada la gaadho bulshooyinka Soomaaliyeed waan la wadaagi doonaa annagu guddi farsamo u nahay oo wixii farsamo baan isu soo dhaweynaynaa waxaan soo ku rajaynaynaa hawsha inay dhawaan soo idlaato oo si khayr qabta ay ku soo dhamaato